السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالكين إلياس إكسبرعو إن سلام يا غير سومال لأن ملقفتو أجوبتين waxaan ku hadlaynaa arin aad u foolxun oo ka dhacay meesha ay degaan Gadaadweyn iyo Qurun Qadhaadh dadkaas meesha degaan waxa ka dhacay arinkii wiliga iyo laan arkay dib u foosxuma inan yar oo awra oo masaakiina oo wili aqaan gaarin bay intay soo kaxaysteen bay kufsadeen markaas fiidiyoona ka duubeen raggii waxa ku kacay magaalada joogaan magaalada dhaxmaraya dad baa jiray inta uu doo online oo ugu gargaaraya si walaaltinimo dadka waan soo dhaweynaya gargaaraya inta laakiin mid baan kula talinaya dadka qaar baa jira jawaano la ordayo inta lacag bay u baahantahay waranta yar lacag ma baahna inta yar waxay u baahantahay dadkii waxaan ku sameeyay in la soo qabto oo maxkamadda la hor keeno oo xaqeeda loo dhiciyay inta yar rabtaa dadkiina lacagta baawar saarayo waxaan leeyahay inta yar meesha in cadaalad ka jirto inta yar maskaxdii baa la kaga ciyaaray ma rabto inta yar lacag ma rabto inta yar waxay rabtaa dadkii waxaan ku sameeyay ay arrinka foosha xun la qarmuun in loo keeno oo loo xukumay rabtaa haddii in cadaalad ka jirto meesha arrinkaas ka dhacay waxa leeyahay waxa maamula dameerkan maamula Puntland caloosha buuran leh kaasa maamula aan san u maqlay leeyahay meesha arrin ka dhacay weeyay kama hadal wali intu Steve soo hor fadhiistay ama video soo dubay laba ka Soomaaliyeed oo dhan ay ka gadooday kama hadal laakiin haddii inantiisa ahaan lahayd ama walaashii ahaan lahayd dameer dhawaayd caloosha buuran leh meesha jooga ee maamulada Puntland bari oo soo carar la bari horaad arki lahayd iyo ka qoriyay oo meelaha cararaya wada arki lahayd laakiin inantiisi ma meeshan cadaalad kama jirto Soomaaliya inanta doo gargaaro dadka daf Soomaaliya ku hadlo inanta loo gargaaro annagu hadaan nahay dadka reer Somaliland ee jamhuuriyadda barakaysan waxaan leenahay arrinka aad baan uga xunnahay waxaan ka qaban karnaa ma jirto laakiin waan abaareenna waayo annagu waxaan maamulno ma anaga gudubna arrinka kale aan igu yaab badnaa wuxuu ahaa mid uu soo diray dameer calasu kan daahir leeyahay baal maxaa wax niyo ina xaar ayuu mid kala soo diray video uu ka soo duubay meeshan leeyahay waaga cusub isagu maamulo ayuu ka soo duubay video mid kale oo 3 nin bay kufsaday niyo diinta islaamka mid ka baxdeen maxaasiya wixii ba qaaraan ururin bay moodayaan mid kale soo duubeen oo Gadaadweyna Qurun Qadhaadh bay soo duubeen oo 3 nin bay kufsaday guriga ka shaqeynaya boowe 3 nin ay qabsaday waa la kufsaday wardaar cala soo waxa ka dambeeya kaadin jaazi u dhaay waxa meel soo galeysay waxba ku helimaysid waa dawarsigaagi weeye daasadii xumeed bay seetaa daasadii xumeed daabshiil aad waxba ka qaadi weeyday bay seetaa wariyaha still no kaasa wuxuu soo fadhiisiyay afar buu soo fadhiisiyay aan isla waxaan isbaarooyin bay ku haysteen Muqdisho gebi oo dad nooc kala shaqeeyay ama buu soo fadhiisiyo arrinkii ka warama daabshiil maxkamadda la kornay abbo waan ka raynayno war kama rayn karto ninka soo dhin lacag leh ana xayraan baad oo waxaad ku dawarsataa meesha yaraana waaga cusub ku dawarsataa dadkaada heblaan ninkeedii furay iyo heblaada la soo furay waxyaabo noocaas ninkan daahir calays taariikhda saadina ka sheekayna ma taariikhda ingiliina ninkan 2006 buu yimi holan kan holan uu iska dhiibay war maxaad wadankaaga u timay lagu daahir calays wuxuu rag saaqay kufsaday afar nin oo saaqay day kufsaday buu waa daahir calays ninka isku dhiibay holan iska dhiibay afar nin oo saaqa ayaa kufsaday waa daahir calays labada nin aad mid amaanayso midna aad caayisa waa laba noo doorto walaalaa weey ninka taageersantay aad leeday habaryoon waa dad fiican tay waa walaaladay oo tolkay kan ka aad amaanaysa aad caayisa aad leeday habar jira waa dad xunna tay kuna waa laba noorto walaalaa horta weey dameer ku dhaca saa ogo labada nin walaalaha aad mid xiiniya u salaaxaysid mid aad caayis waa walaalo waa dadka ka jecel dad meel wada weeye dadkii kooriyay weeye daahir calaso adiga abaaba dadkii ingiliyay weeye Muqdisho idin eriyaday imiga dad burcad timaadido aatayda habar jalan caayay habaryoon iska yeelimayso awaan dhalay baa tahay dad walaalaaba nahay gacmana soo haysanaa waxaan ku midownay adiga iyo noocaaga iyo wixii soo raaca dhan inaan labada dhagood ka jarno baan ku midownay dad walaalaaba nahay Soomaaliland waa one love haddii aad leedahay qabiilkan badcaaysa qabiil kale aad ku saabtamaya waxaas ma jirto saaxiib isaaq waa mid weeye isaaq waa mid hadda idinku aad leedihiin waxaan la yiraahdaa Qurun Qadhaadh iyo Gadaadweyn waxa aad kala baxdeen anagu dad mid aan nahay dad jecel baan taariikhda in yarta ka sheekeen aniga hadda daahir calays adiyo tolkaaba barigi Talyaanigu meesha uu joogay Muqdisho aad ku soo kortay ku soo barbaartay dad cawaanaad haydeen webiga la idinka talaabi jiray webiga ayaa saanta la idin seeseeyo
بوتليان ويلقى كذا تلابيتشي قف عقل لما يدون لهين قف علمي لما يدون لهين تاريخ ذا كوميرشيرو قف دad kaad ka soo jeeda oo taariikh leh ama buwaad Soomaaliyeed hada lagu soo ogabayatiriya ama taariikh leh kuma jiro ninka noocaas ah tahay qofka uraya noocaas tahay ee maangaabka ee ku dhiiban rag habar jeclaa way kufsaday waan soo ogaanay waxa habar jeclaa waxaad u nacabtay kuwaan kufsan laysa minna annaku qaymulud manihin nacalad kugu soo degto orad wixii kufsaday dad doono aadin salaam ya dareeshu meelan ruuxa iska ilaaliya waxaas wax uraya weeye وعريه ويساق ونقاس يذكر حالين كان بو اسرائيل لا صاحي او كان قدر ورساق waa mid weeye wallahi waa loof waragii diinta qori qaateen wadankooda ka heeriyay kaadin ijaazo kaadin ijaas ku dhaay ee dibna hadlay aad bay islaamiyada nabadgelyo